madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Qaahira ayaa maanta waxa uu magaaladaasi kula kulmay madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd Cabdiqaasim Salaad Xasan. Tafaasiil warkaasi ku saabsan waxa inoo haya wariyaheena Maxamuud Cabdi Diirshe. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo socdaal shaqo isaga wafdi hogaaminayay ku joogaan wadanka Masar ayaa maanta waxa uu la kulmay madaxweynihii hore ee dawladda ku meel gaarka ahayd ee dalka mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan. kulankaas oo sidoo kale goobjoog ka ahaayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa ka dhacay caasimadda Qaahira oo xilliyadii dambe deegaan u ahayd mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay sida dalku uga soo kabanayo burburkii muddada uu ku jiray. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa haddii aan horta Ilaahay loo soo noqon dhibaatadu naga tagi mayso nagana kici mayso. bal horta Ilaahay loo soo noqdo, diinta Islaamka iyo Ilaahay loo soo noqdo waa marka koowaad. marka ku xigta oo hal baryo Ilaahay hal baryo oo Quraanka hal akhriyo oo qof walba Faatixada qofkii yaqaan Faatixada inta akhriyo inta soo goor 7 goor uu yaraan inta akhriyo Ilaahu Rabbi oo dalka balaayada ka dulqaad hayra meel uu joogaba. marka ku xigta hal is cafiyo Ilaahay cafis hal warsado si Ilaahay noo cafiyo annagu waa inaan is cafinaa waxaan shaki lahayn dawladdu wixii ay ka qaban karto inay ka qabanayso dadkii hantidooda ama la qaatay ama dhibka loo geystay sidii wuxuun loogu qaban lahaa. laakiin waxaa la rabaa in duqeyda culamaa u diinka dadka wax garadkaahu arrintaas ay wax badan ka qabtaan Ilaahay si uu dhibaatada nooga dulqaado. aan barino Ilaahay dabadeedna aan isu soo noqonno gacmaha aan isqabsanno koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo qoraxsin meel kastaba hal is cafiyo Ilaahayna hal baryo ayaan leeyahay.